gabadh isjeclaa yaa la isu diido labadooda family ay isu diideen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا دي سلامي ميل كستو ادونك جوجتان اصحابتا جنكيغا كوخيران ومسكينتي نيريد اصحابتا قاديغايه جنكيغا كوخيران اد بان دي سلامي اصحابي مقال aad qurux badan baa dii wada hees sultaan seeraara waana heesta cusub ee waxaan ku imika soo baxday daawaha laga soo qaaday waana heesta 257 ayaan maleynay amse 275 asxaabta heesta asalidii wada asxaabta qaaliga soo reehada halmaan kuma jiro heestu inaba caadi ma aha waa hees jacayl dhab laga sameeyay isaga ayaad ka arkaysaan marka hore heestu siday ku timiday iyo qaabka loo sameeyay ka bacdina heesta ayaynu guda gali doonaa asxaabta fadlan waxaan ka codsanayaa haddaad nagu cusub tahay like subscribe share comment kuna waa dhiirigelintiina mar walba asxaabtaada kale la wadaa muuqaalada aan soo dhigno sidaad adigu saaxiibka nolol tahay iyaguna saaxiibha nolol noqdaan noo sii share garay muuqaalka fadlan dad ka hesho like saar baa ku leeyahay muuqaalka adoon like saarin xageed looga tagaysa muuqaalka intaad furto oo aad daawato like subscribe share comment ka intaba hadaanad siinin xageed aad lahayd asxaabta hadal yaanin ku daanin heestaas sultaan seera baan eegina balse heesta intaynaan guda gelin waxaan eegi doonaa sultaan seera baa wuxuu inoo sharixi doonaa heestu siday ku timi kulay Soomaali qabiil ma deyso iyo laba qof oo la isu diiday marka heestan waxay ku timi wiil iyo gabadh is jecel inay ka hor dhaco marraday wiil iyo gabadh is jecel oo la isu diiday balse markii dambe dadaal badan ka bacdi is helay bay heestan ku timiday sultaan baana sharixi doona heesta clip yar oo gaaban oo aan soo helay oo ka hadlayo heestaas macnaha ku timiday iyo sida ay ku timiday ayaan idii hayaa asxaabta muuqaalkana waxa soo galiyay waqal studio oo aad uga baratay mar walba heesa macaan heesa qurux badan bal waa kan muxuu leeyahay sultaan seera muuqaalka ila wada daawada marka hore heestu inoo sharaxi doonaa wiil iyo gabadh isjeclaa yaa la isu diido labadooda family ay isu diideen arrin qabiil ku saabsan awgi inagu haddaan Soomaaliyahay qabiil iyo cunsuriyeen kama dhamaano marka wiilkii gabadhii 2 sano la isu diidanaa markii dambe ay 2 sano ka soo wareegatay baa la isu ogolaaday markii way isguursadeen taariikhda isguursadeen waxay ahayd 275 bishaan imika soo dhaafnay 27 asxaabta qaaliga waxaan rajeynayaa inaad ka soo wada bogateen way fanaanka sidoo uu shaaciyay heestu siday ku timi sultaan seera uu idii sheegay waanad ka dhalagteen baan u maleynay qaabkii ku timiday iyo sida ay heestan ku soo baxday iyo sida lagu sameeyay waa hees cusub waana wiil iyo gabadh is jecel sidoo isagu way idii sheegay kale Soomaalidu qabiil ma diiso qabiilna lama dhaafo adduunka waxay naga reebay waa qabiil adduunku hormaray laakiin Soomaali waxa hoos u dhigay waa qabiil ana ka maxaysanay ana maxkaadi laba qof oo is jecel oo is raba oo doonayeen inay isguursadaan guurkii xalaasha bal oranay isku qabiil ma tihidin subhanallah waa wax la yaabo waana wax maartay tacajib leh bal heesta ay wada daawano marka heesti waa tan macaanade asxaabay bal ila eega muuqaalka like share subscribe comment heestan ila dhigay kabana gabadha gaari dumariyo waa gobdhalado waana geenyada guusha noloshaba aan ku garo waan gudoonsado waan garwaaqsade kabana gabadha gaari dumariyo waa gobdhalado waana geenyada guusha noloshaba aan ku garo waan gudoonsado waan garwaaqsade kabana gabadha Guyal badan so 275 geeya ma sugin 275 gaari maandaya 275 loo dhaxgaliye 275 ilna gudashada 275 oo garadla 275 gulay ma siin 275
galladee biyo go'aan keeni waynu gaarno godlay caashiqi guuri farxadlaan googol dhigano aan ku gamano gaarnaysaan rab galladee biyo go'aan keeni waynu gaarno godlay caashiqi guuri farxadlaan googol dhigano aan ku gamano gaarnaysaan rab hobay 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 asxaabta qaaliga heestu sida ku bilaamayso waad arkaysaa innaba caadi maaha heestu farriin laysu geynayo ayay heestu ku bilaamaysaa heestu waa hees aad iyo aad u macaan adduunkana waxaa ugu fiican wax qista dhaba laga sameeyey ayaa ugu wanaagsan intan hees soo daawanaya waa heestii ugu horeysay amba fanaan afkiisa aan ka maqlo waa hees qista dhaba laga sameeyey waxaa laga yaabaa dad badan oo qisooyin badan haya inaan dadku ogeyn ama markaas aan abwaanka aan la kulmin ila fanaanku heesta ma sameeyo waa loo soo dhibaa abwaaninta inta badan la kulma dadka laga sameeyo waxyaabaha dhacdada caadiga ah marka heestan aad bay u macaan tahay kole boqolaal qof oo maxaa la dhahdaa dee waxyaabo noocan oo kale la kulmana way jiraan oo dadku aanay ogeyn laakiin qabiil ha la iska daayo dadka jecel ha la siiyo cidna cid wax ma dheera qabiil wax ma dheera 9 bilood baa lagu wada dhashay ilaahay xaqiisana waa laga wada sameeyay qof wax dheer ma jiro haddaad taajir tahay iyo haddaad faqiir tahay iyo haddaad tahay laandheere haddaad tahay laangaab intoo adaa ku dhib qabo halka reexa markaas isku midun baa laga waaya ilaahay xaggiisa waad ka wada simantiin marka Soomaaliga qabiil naga daayo dadkiis jecel ha la siiyo qabiilna ha laga talaasado ha laga tago adduunku hadda waa iska gabagabo marka qabiilka iska daayo baad leeyahay heesta qaybteeda kala bal asxaabi wada dhamaysan meeno balse qayb ka hobay 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 ubbanne kabbanne gabadha habla gabigood waa ka gaaro goobad hooyiyo abba geesiya baagardaadsho runti gabadhan waanu gola tegay kabbanne ubbanne gabadha habla gabigood waa ka gaaro goobad hooyiyo abba geesiya baagardaadsho runti gabadhan waanu gola tegay kabbanne ubbanne gabadha وجودتي 275 عد قلبي 275 سوق بات كان 275 قفع روب 275 عنك قلي إيو 275 إيما نغم قولي 275 إيو جوجل بيرن 275 galladee biyo go'aan keeni waynu gaarno godlay caashiqi guuri farxadlaan googol dhigano aan ku gamano gaarnaysaan rab galladee biyo go'aan keeni waynu gaarno godlay caashiqi guuri farxadlaan googol dhigano aan ku gamano gaarnaysaan rab hobay 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 asxaabteeda qaaliga heesta ka banee u banee gabadha waa 275 heestu caadi ma aha innaba caadi ma aha haddii tahay meesha lagu duubay waa waqal studio oo looga hadhay qaybta doobista iyo waxaan ku leenahay fanaankeenna qaaliga Suldaan Seeraan oo codkiisa aan innaba caadi ahayn hadduu leefu heesayo iyo haddii kaleba waa isku mid ka banee u banee gabadha 275 heestaasi kole anigu waa iga gadanta ee waliba qisada dhabtaa laga sameeyay aad baad ugu raaxaysan doontaan heestu marka qisa dhaba tahay dad badan oo qisadaas oo kala haystaana way jiraan isku dhayi doona heesahan marka saxaabteeda qaaliga muuqaalkeena halkaas inoogu dhamaaday heesta iyadoo dhamaysa haddaad rabtid waqal studio channelkiisa ka booqo oo ka daawo saxaabteeda qaaliga fadlan waxaan kaa codsanayaa muuqaalka like saar share subscribe comment kuna waa dhiirigelintiina mar walba fadlan waxaan kaa codsanayaa walaalkaaga kale u sii share garee muuqaalka sidaad adigu saaxiib noola tahay iyaguna saaxiib ha noola noqdaan aad baad u mahadsantiin asxaabta ku xidhan channelkayga mar walba inkastoo maalmahan aan ka yara gaabiyay channelka oo aanan waxyaabo badan aanan soo gelin mashquul awgeed asxaabteeda qaaliga aad baad ugu mahadsantiin heestaas ay soo jeedatay iyo heeso kaleba waan soo wadaa insha Allah oo soo gelin doonaa channelka aniga ma heesiyo laakiin waan soo wadaa oo channelka waa soo gelin doonaa wayn wada eegi doonaa fikirkayga ka dhiibin doonaa aad fikirkaaga ka dhiibin doontaa laakiin mashquul yar baa iska jira balse asxaabay heestaasaan maanta arkay caadi maaha
275 ka banee u banee gabadha caadi mahmaanta dhawaad dhegeysan iyo heestaas idinkana waad ku raaxaysan doontaan sa hore u sheegay dad badan oo ay saameynaysaana way jiraan isku dhayi doona markaa saxaabteeda qaaliga hadal badan haan ma buuxsho aad baan idiin salaamaya muuqaalka leeg saar share iskareeb assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fadlan leeg saar muuqaalka